Taiwan waa maamul ama dal aan la aqoonsanayn isla markaana doonaya inuu ka go'o dalka Shiinaha. boqolkiiba 99 dhulkeedu waa jasiirad, badkeeduna waa wax ka badan 36,000 kiiloomitir isku wareega, waxayna dhacdaa bariga Aasiya, gaar ahaan koonfurta bari ee dalka Shiinaha. Taiwan waxay taabacsaneed ama raacsaneed ilaa sanadii 1859kii waddanka Shiinaha, kadibna waxaa qabsaday dalka Japan. Markii Japan lagu jabiyeyna dagaalkii labaad ee dunida, Taiwan waxay gacanta mar labaad u gashay waddanka Shiinaha, waxayna Taiwan si toos ah uga mid ahayd Shiinaha ilaa 1949kii. cid ku dhacday inay aqoonsato ma jirto, xitaa Mareykanka ayaan aqoonsanayn. Sababtuna waa dowladda Shiinaha oo ah awood difaacan karta dhulka iyo mabaadi'deeda asaasiga ah. Markii la doortay Trump, wuxuu durba sheegay inuu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Taiwan, waxayna taasi ka xanaajisay dowladda Shiinaha. waxaana durba hadlay afayeenka xafiiska siyaasadda Shiinaha ee arrimaha Taiwan, asigoona uga digay Trump inuu wax ka bedelo siyaasadda ah hal Shiino ama midnimada Shiinaha. laakiin midda cajiibka ayaa ah inuu Taiwan aqoonsan yahay dal yar oo boqortooyo ah oo lagu magacaabo Eswatini, horeyna loo oran jiray Swaziland. waa dal xiran oo dhinacyadoo idil ka xigto South Africa marka laga reebo dhanka waqooyiga bari oo uu ka xigo dalka Mozambique. Eswatini ayaa ah dalka kaliya ee Afrika ku yaala oo xiriir diblomaasiyadeed la leh jasiiradda Taiwan, waxaana soo labeenaysay Burkina Faso oo markii dambe la xiratay Shiinaha. markii madaxda dalalka Afrikaanka ah ay ka qaybgalayeen shirka Shiinaha iyo Afrika, wuxuu boqorka aqoonsaday Taiwan uu ka qaybgalayay munaasabad dhaqameed sanadle ah oo uu ku xulanayay gabadhii noqon lahayd xaaskiisa 15aad. sanadkan aynu ku jirno, dalalka ka jira dunida kuwa la aqoonsan yahay iyo kuwa aan la aqoonsanaynba, Taiwan waa dalka 21aad ee ugu dhaqaalaha badan. jasiiraddan yar ee aan aqoonsiga haysan ayaana ka dhaqaalo badan dal walba oo dhaca qaaradda Afrika, wuxuuna dhaqaalaheedu ka badan yahay isku darka dhaqaalaha dalalka Algeria oo ah dalka ugu weyn Afrika iyo Nigeria oo isna ah dalka ugu dadka badan Afrika. sidaasi oo ay tahayna Taiwan hodan kuma ahan, mana lahan shidaal ay soo saarto. haddii aad baabuur wadatana dhulkeeda gees ilaa ka gees ayaad ku tagi kartaa muddo 8 saacadood ah, waxayna ka mid tahay meelaha ugu badan ee dhulgariirku ka dhaco, waxayna la kulantaa sanadkii in ka badan 1000 dhulgariir, waxaana 2009kii ku dhufatay duufaan dishay 673 ruux, isla markaana sababtay khasaare dhan 3.3 bilyan oo dollar. tirada dadka Taiwan waxaa lagu sheegaa in ku dhow 24 milyan, boqolkiiba 95 ayaana ah qoomiyadda Han oo ah midda ugu ballaaran marka la eego qoomiyadaha ka jira dalweynaha Shiinaha. Taiwan waxay leedahay warshado wax soo saar badan, fure u gaar ah, lacag u gaar ah, baasaboor u gaar ah, iyo ciidan xooggan oo u gaar ah. waxaana ciidanka Taiwan la siiyaa tababar aad u adag. bal ka waran haddii lagu dhaho ku soco adigoo cagacad masaafo dhan 50 mitir oo lagu daadiyay dhagaxyo kala duwan. haddaba haddii aad taas dhib u arkayso, ciidanka Taiwan marka la tababarayo waxaa lagu amraa in ay 50 mitir oo dhagax lagu daadiyay ku xamaartaan, weliba ayagoo xabad qaawan. waxaana qasab ah inay laabaan gacmahooda. dhagaxda ayaana ah kuwa loogu talagalay inay xanuujiyaan isla markaana waxyeeleeyaan jirka askarta la tababarayo. beel la dhaho Amai uma tixgeliyaan nin rag ah nin aan soo marin hoolasha lagu qaato tababarada kala duwan sida ciyaarta karateyga, waxaana awoodiisa jir ahaaneed la qiimeeyaa ninka marka uu gaaro da'da 22 sano. haddii uu furana gabadha loo guuriyo sabab walba ha jirtee, waxaa ku waajibaysa inuu ku laabto tababarka. sidoo kale ninka waxaa waajib ku ah inuu 12 hadiyad oo kala duwan u geeyo maalinta arooska gabadha uu guursanayo. sidoo kalena waa inuu cod dheer ku dhahaa dalabka ama codsiga uu sameynayo kolka uu gabadha doonanayo. waxaana xusid mudan in Taiwan ka mid tahay dowladihii ugu horeeyay ee Aasiya ee ogolaaday inay isguursan karaan dadka isku jinsiga ee isku taga. jidadka Taiwan lama dhigo sanduuqyada ama haamaha qashinka lagu rido, balse taasi beddelkeeda waxaa la dhigaa goobaha shaqada iyo guryaha dadku degan yihiin. caasimadda Taiwan waa Taipei, waxaana ku nool dad ku dhow 3 milyan, waxayna caan ku tahay daarta Taipei 101 oo ah dhismaha 10aad ee ugu dheer dunida. waxaana xusid mudan in ay ahayd daarta ugu dheer dunida intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2010kii. Taiwan waxay haysataa internet aad u xawaaro sareeya,
goob walba oo ka mid ah Taiwan ayaana laga heli karaa internetka, waxaana arrintan kala siman laba dal oo kaliya, kuwaas oo kala ah Singapore iyo Sweden. Dadka Taiwan boqolkiiba 97 waa kuwa adeegsada aaladda Facebooka, waxayna intooda badan u isticmaalaan hab ganacsi sida inay ku xayeysiiyaan wax soo saarkooda. Taiwan waxay kala siman tahay dalalka la deriska ah cunidda hilibka eeyaha iyo bisadaha ama yaanyuuraha. Singapore, Kuuriyada Koonfureed iyo Hong Kongna waxay kala siman tahay koriinka dhaqaale iyo wax soo saarka badan ee weliba jaban. Taiwan ayaana ah halka ugu badan ee laga soo saaro adkaha ama dhagaxa lagu magacaabo biro.